هلو السلام عليكم walaalyaal waa salaamayaa salaan dabadeed bariyaan qadadka waa ka maqnaa oo hawlay waxbaa ku mashquulsanaa waxaan rabaa laakiin aan idiin sheego isla channelka waxaa ka bilaabanaya podcast cusub oo la yiraahdo Aamina Sounds af Soomaali waxa waaye dhawaqa Aamina podcastgaas barb waxbaan kaga hadli doonaa laakiin waxyaabaha ugu waaweyn waxa waaye storytelling ama sheekaysi sheeko habaysan oo qoran oo scripted ah oo la akhrin doono iyo arrimo kale oo tacajub leh sida waxyaabihii ugu daraa oo inta social media ku jira soo maray waxay u badan tahay inaan taas ku bilaabi doono wax la kala faa'iideysto ma xuma iyo waay aragnimada macnaha maaha dhib iyo waxaaga iyo laga sheekaynaa maaha laakiin arrimo waxaa jira cajiib inta saxaafadda ku jira iyo inta aan social media ku jiray social media meesha iigu horreysoo soo gala wuxuu ahaa facebook ka hor waxaa jiri jiray wax la yiraahdo MSN oo Microsoft ay leedahay oo lagu sheekaysan jiray halkaas wixii ka dambeeyay oo emailkaaga ku xiranayso markaa qofkii maaragtay contact kula ah ku wada hadli jirteen wax videona ma jirin intaas ka bacdi facebook aa imaaday facebook markuu yimid markuu Yurub soo gaaray waa xasuustaa maalintii aan facebook samaysanay 2000 iyo waxay ahayd 8 2008 aan facebook samaystay anoo London ka guuray oo Luton gobolka Bedfordshire u guuray ka bacdi waxba meel ay soo martay YouTube asaga qofka alla oo Gmail lahaa oo kaga furnaa google.com email oo kaga furnaa ayaa YouTube markii dambe loo sheegay oo YouTube yeeshtay marka isagu wax completely cusub ma ahayn laakiin wuxuu ahaa wax Gmail-ka la socdo ahaa inkastoo muuqaal ahaa oo muuqaalada oo maarta soo deynta muuqaalada wax ka bedelaan marka dadka la isku darsanaayo oo la wada sheekaysanayo oo la xiriiraayo MSN-ka in yaro kooban maahay inta kaleeto maba ku maaragtay mis arkaynina laakiin Facebook markaan samaystay hal sheeka idin sheega waxyaabay igu cajiibka badnaa waxay ahayd nin Soomaaliya iska barana Facebook xagee joogtaa iri waa mar hore waa 10 sano wax la jiro ka hor wuxuu ugu yiri Sweden aan joogaa adin inta joogtaa ana UK aan joogaa ma hayna ninkii wax ka sheegay laakiin waxyaabo aniga iga yaabiyay kamid ahayn oo ugu horeeyay hadda yaabku waaba iga dhamaaday wuxuu yiri adu waa sheekaysano wuxuu ii sheegay dad aan anigana garanayo asagana oo qaraabo ay yihiin oo hebla ma taqaanaayo hebla abtiyaan oo hebla ma taqaanaa hebla adeeraan oo hebla awna ka xogaa nin weyn iska hala kasto iska caynta masawirkiisa daa fiiriso kasto dhaxaad oo iska ah oo kasto maarta jaw ah bas ninkii waa sheekaysano arrinta sukaansi isku bedeshay markay isku bedeshay anigana barigaas waxay ahayd barigii aan weli caraysnaa oo maaragtay 2003 nin kala tagnay moogta marka dhibaatooyin badanna waa maray weli dhibaatooyinkan igama dhamaan marka xoogaa weli caracaradii aska ka haysa moogta aduu ninkii hadalkaygii maartay inaan hadalkiisa danaynayn marka uu arkay buu malaha bac isku xiray marka aniga ninkaan inaan face to face u aqaan maba ahaba wuxuu yiri waxaad iga meermeereysane waa garanayaa markaasaan ku walaa see ku garatay baan ku yiri ani qof iska mashquuli karaa hadalkaaga inaan daneeyana qasab maahan see ku garatay ilaa ninka ilaahay baa ka dhigay lugu cuuriyaanka yahay maba ogaba inuu lugu cuuriyaanka yahay oo maba aqaan moogta ma arag lugihiisana ma arage sawirkan wajigan bas oo ka muuqda wanina yaabay yaa aan iri waxay og tahay oo yiri inaan cuuriyaan ahay oo luka go'anahay saasuu yiri labadaas usukay raacay inaan cuuriyaan ahay oo luka horta cuuriyaan matid baan ku yiri naafaa tahay
naafaa la dhahaa baan ku iri kelmadda af soomaaliga ugu fiican qofka naafaa la dhahaa ma curyaan lama tiid baan ku iri midda kale disability is not inability haddaa aad macnaha naafo tahay macnaheeda maaha waxbaba inaada awoodin ma aha oo waa adigaasba damacu naagaha kaa gelayaan oo shukaansanaya marka waxaan ku dhahay istajiyan ku yiri horta ani maba ku kasayaan lugtaada ma arkaan dhahan lugtaada ma itusta aan dhahay ma lugta berigaas kaamerooyinkan iyo waxaan waa yaraayeen 2008 waay dadka ugu horreeya Facebook ku saaxiibno ninkaas ku jira Sweden oo jooga waa xasuustaa wuxuu yiri ninkii أنا وحاسك جعل قفك أسكر رالي قليو نك سي الله إساء الرالي قليو واي هذا وإحنا ما كان ليا لكن جست أسكر رالي قلي بس إنا عريانة هاي أكتهاي إنا اللوك لا هاد أكتهاي إنا اللوك قانا ورنيه اللوك تاد هو فيها فوحي تاما قرنا إيه كمان قانا ده إنا كقان تاين كلام هذا يشجع نيو يسدجبن كيري متى كلام حنقول دتك أنكو قرنين وحاسها ولا يمان لما بكو أقان أنا ما بكساي مقطع marka arinta kale oo igu yaabka badneed waxay ahayd laba idin sheega nin muuqaalka dambe idin dhamayn doonaa ta waa idin bilaabaa bas nin asagana Facebook gala soo xiriira oo marka hore marka mar dambe waay ii sheegay in uu joogo dalalkan maaragtay Afrikaanka ma xasuusta mid ay sheegayda oo yiri baxaraan galay hay walaal maxaa baxarka gashay muxuu ولا لنا إلى تلسار ربع قبرت له في عناتها ومركان تنبوي أو عن شكوين كي يحيي كشكي محنك على طليان كور كلها ولا شيء أرسنا المسك دلنا وحصادن هذا تاشكاس ففاهمت دبل كشدك وحصادن وحنكو كيناي مركان ما أنت تيك توك وأركن اللي ليه عرورتي السوق في صدق أما قبل يسوق المكان عليه ساكو بيني سماله ساكو الرماي سنة ماله ayadoo aan ognahay dadka oo dhan inay waxay doonaan iska sheegayaan si muuqaalkooda loo daawado marka walaalayaalow baryay naga taaganta waade baryayna wax aan run ahayn ha noo sheegina wax aan run ahayn ha noo sheegina ariga labadii qof oo sheekaasna dhex martay mid waa huba waa noolyahay kii kale maaqa meel oo ka baxay ya laakiin ninkii hore asaga waa noolyahay waa huba inuu noolyahay Sweden uu joogaa meeshu jooga xataa waa aqaan marka naga daaya walaalayaal waxyaabaha aan runta ahayn dadka yaa loola imaanin been hawaaska hala joojiyo Soomaaliyeed views yaaba kala ku heli kartaa insha Allah podcast-gan cusub ayaan waxyaabo badan kaga sheegi doonaa waxyaabo badan idinku soo gudbin doonaa sheekooyin badan oo badankooda ma aha in qof looga qosliyo iyo balaa iyo looguma talagalay waxa loogu talagalay in wax laga dhex barto waayo sheekada tabinteeda waxay u baahan tahay farsamo gaar ah fahamkeedana ummadda dhan u furan yahay qofka soo u fahmo laakiin waxaa la rabaa haddana maadaama sheekooyinku ay suugaanta ka mid yihiin suugaantu ma aha oo kaliya gabay guurow baraambur ma aha kaliya sheekooyinka la qoro oo sheeko faneedka la yiraahdo ayagana waa suugaan waxaa loogu talagalay bulshada inay si aan rasmi ahayn oon toosnayn oo indirect ah inay wax uga bartaan bulshada marka hana nala yaabina haddaan waxyaabaha qaar idin soo gudbino sababta waxay tahay arrimaha qaarkood hadda sida ay waxyaabahan impossible noola yihiin waxaan dhici karin arrimaha qaarkood markaan idin sheegno oo hore laga yaabaa إن إذا كان إذا لنا قضاء واحد يكرر لكن ناشر وإذن شيء كسر هذا بودكاست عصب من الساوندس هذا كم حواي ولا نسيء جسينو يالي بس بودكاست جي أو رسمي معه لكن فور تيست اللي نسينا وحيابها على غياب إن بودكاست قصقد عبتان تاني كلنت بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور كلنت